Isbuuca soo socda ayaa lagu wadaa in la dhammaystiro heshiiska kubad qaabayaha reer Spain ee kooxda Chelsea ugu biiraya naadiga Monaco ee dalka Faransiiska ka dhisan. Laacibkii hore Arsenal iyo Barcelona ayaa naadiga Chelsea ka waayay booska joogtada ah sida uu la wareegay maamulka kooxdaasi Mauricio Sarri oo u dhashay waddanka Talyaaniga. Ciyaaryahankan 31 sano jirka ah ayaa ku dhibaatoonaya in uu boos joogto ah ka helo xidigaha kala ah N'Golo Kanté, Matteo Kovacic iyo Jorginho kuwaas oo ah ciyaartooyda ugu horeysa ee safka koowaad ee naadiga Chelsea. Sida uu ku soo waramayo wargeyska caanka ah ee El Equipe ee ka soo baxa dalka Faransiiska, Fabregas ayaa ku biiri doona kooxda ka dhisan dalkaasi Faransiiska. Cesc Fabregas ayaa aad markaa loogu doonayaa horyaalka dalkaasi Talyaaniga kooxda AC Milan, laakiin wararka soo baxaya ayaa sheegaya in toddobaadka soo aadan la dhammaystiri doono heshiis uu kula midoobi doono kooxda kubadda cagta Monaco iyo laacibka hore naadiga Arsenal Thierry Henry kaas oo ah tababaraha kooxda Monaco ee ka dhisan dalka Faransiiska. Henry ayaa qabtay xilka tababarnimo ee kooxdaasi bishii October ee kasoo gudubnay, waxaana tan iyo markaasi uu doonayaa in kooxda uu ku xoojiyo xidigo waaweyn oo doonaya suuqa kala iibsiga ciyaartooyda inuu kasoo qaato. Dhanka kaleeto, laacibka lagu magacaabo Gary Cahill ayaa lagu soo waramayaa in isaguna Stamford Bridge uu isaga dhaqaaqi doono, waxaana jira kooxo waaweyn oo daneynaya helitaanka ciyaaryahankaasi. Si kastoo ahaataba, Cesc Fabregas ayaa soo gabagabeyn doona Chelsea oo markaa ku sugnaa muddooyinka ugu dambeeyay isagoo ku biiri doono kooxda Faransiiska ka dhisan ee Monaco.